Somali STEM Summit oo ah shir sanadle ah oo STEM sidaad u ogtihiin waxay u taagan tahay Science, Technology, Engineering iyo Mathematics waa madal Soomaaliyeed ee isugu yimaadaan aqoon-yahaninteenni waxgaradkeenni ardadeenni ganacsatadeenni siyaasiyiinteenni iyo dadka kale oo international community-ga ah waxaan ugu talagalnay runtii in aan ka wada hadalno caqabadooyinka waddanka na haysto iyo siyaabihi aan uga bixi lahayn for example sanadkan filmka aan ka hadlayno wuxuu ahaa STEM in sustainable impact waxaan diiradda saarnay climate adaptation innovative solutions in drought iyo famine-ka jiro waxaan kaloo fiirina beeraha caafimaadka waxbarashada shaqo abuurka dhalinyarada iyo maalgelitaan shirkii sanadkan qaamaha laga hadlayo abaaraha isbeddelka cimilada runtii sida uu ogtahay Soomaaliya warshadada ma lahan oo dhaawac u keenayo climate-ka laakiin sida uu ogtahayba geedaha ayaan jarnaa oo aan dhuxul laga suubiyaa dhaawac weyn bay noo tahay laakiin intaan dhihi lahayn hal la joojiyo geedaha kaliya waxa loo baahan yahay dadka qutulyoonkooda uu yahay oo noloshooda dhanba ay ku xiran tahay in ay geedo jaraan ee ka suubiyaan dhuxul waxa loo baahan yahay in ayagana hal abuuro ganacsi kale iyo waxyaabo kale oo dadkaas looga faa'iideynayo in la soo saaro marka dhinacaas ayaan hotore wax badan laga hadlay waxa kale oo laga hadlay dhinaca kale oo daad ayaa yimaado oo runtii maal badan iyo naf badan aan ku weynaa taasina waxa waaye ishak annaga oo aanan runtii ka fikirin sidii aan biyahaas u xakameyn lahayn aan u hagaajin lahayn waxa kaloo jiro abaaro baaba'an oo dadka baabi'iyo abaarahaas oo kaleetood waa laga hortegi karaa hadda waddanka saddexaad oo adduunka waaye Soomaaliya haddii la dhaho biyo laakiin dadkeenni iyo xoolaheenni way ka ooman yihiin marka waxaan ka hadlaynay siyaabihii aan runtii aan dadkeena reer miyiga khaasatan aan uga faa'iideyn lahayn oo biyo badan loo siin lahaa dambeyntii shirka waxa uu soo bandhigay nabaarsiyada la soo bandhigay maxaa ka mid ah maxayse ka dhaheen xalka waara loo heli karo abaaraha Soomaaliya cilmi baaristaas runtii waxay na tusiyeen qatarta ay leedahay waana ognahay nafaa lagu waayay maalba xoolihii baa ku baaba'ay laakiin waxaan diradda kale aan saarnay sidii aan dhibaatadaas aan uga bixi lahayn hadda research oo wiilasha ka mid ah soo bandhigay oo dhinaca beeraha ah wuxuu tusiyey ummadeenna in qashinka badda ka soo baxo oo seaweed-ka loo yaqaano ay tahay natural fertilizer oo runtii lagu kubcin karo qudaarta iyo waxyaabo badan markii la ogaaday runtii dadkii indhaha baa u kala furnaaday chemical kaliya inta la isticmaali lahaa waxyaabaha kale waddankeena diyaar aan u haysano dabiiciyan in laga faa'iideysto